macallinkii saddexdan dabeecad leh ardaygaasi yacni arday uu macallin u yahay ardaygaasi wuu nimcaystay oo nicmad dhamaystiran ayuu helay sidoo kalena ardaygii saddexdan sifa leh macallinka helana isna macallinkaasi waa nimcaystay أنا أقول لك المقالكة سوى لطني وحن كذا عصنا إن لايكته أتفرتك وأتكيسيد شرط أي كومنت أنا أدلو ذاكتد ولا لا هذا ما هتسند أنا أقول قلنا برنامج كني waa maxay saddexdaasi macallinkii leh uu ardaygu macallin u yahay uu nicmaysanayo waa saddexdan soo socoto kow waxaa weeyaan macallinku hadduu yahay macallin sabar badan kow labo macallin tawaaduc badan saddex macallin dabeecad wanaagsan macallinkaasi ardayga hela waa arday nimcaystay sidoo kalena ardaygii saddexdan sifa leh macallinka helana isna macallinkaasi waa nimcaystay oo saddexda ardayga hela maxay yihiin yacni saddexda shay ardaygaasi ku sifoowa uu macallinka uu nimcaysanayo maxay tahay kow waa arday caqli leh labo aadaab leh saddex xusnul fahmi si wanaagsan wax u fahma isagoo macallinka casharka sharax dheer ka bixin aan ku xiiqin wixii durba fahmaa haddana waa arday mutaadib oo edeb leh oo macallinkiisa xishmaynayo ixtiraamayo haddana waa arday caqli laho macallinka markuu cajisan yahay iyo wuxuu ujeedo markuu hadalka sarbeebayo fahma oo caaqila macallinka xaaladiisa dareemayo isagoo aan u sheegin ardaygaasi macallinka hela macallinkaasi waa nicmaystay sidoo kale saddexdii hore aan soo sheegnana macallinkii ardaygaa helo saddexdii tilmaam aan soo sheegnay macallin kale ardayga helana isagana ardayga waa nimcaystay macallin sabar badan oo ardayga u dulqaata u dhimriya u naxariista sifada labaadna macallin leh tawaaduc oo ardayga aan yacni tawaaduc u sameeya tawaaduca garanaysa waa qofka isbinbiya yani aan isweydinsiin iskibrinin macallinka ardayga u naxariiso u tura oo sida cunug asaga u dhalay waalidkii camal oo la dhaqma macallinkaasi waa macallin wanaagsan ardayga helana waa nimcaystay tan saddexaadna waxaa weeyaan xusnul khuluq macallin dabeecad wanaagsan nabi sal slam wuxuu yidhahday inamaa bucistu liutamima makaarima alakhlaaq waxa uu niisoo diray liisoo saaray inaan dhamaystiro akhlaaqda teeda wanaagsan inta ka hartay inaan dhamaystiro ayaa liisoo diray marka waxyaala janno lagu galan waxaa kamid ah xusnul khuluq taqwa allahi wa xusnul khuluq waa waxyaala ugu badan oo jannada lagu gala macallimiinta laga aflaxana saddexdaasi way leeyihiin dhammaan hadday laba lahayn saddexda way leeyihiin waa macallimiinta wax laga bartay ee ardada ay ka aflaxaan ardayga aflaxa isagana wax bartay aad aragtana waa arday intaas leh arday macallinkiisa xishmeeya ixtiraama xusnul fahmi oo faham fiican aan faham xumeyn haddana caaqila macallinka xaaladaha markuu dhibaato ama waxyaala soo gudbo si walba ay ahaato caaqilo fahmayo dareemayo waa ardada guulaysata ee baasta ee najaxda ee wax barata. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.